وهم هاد علينا وهم هاد علينا قليانا لك الحاستي ونبكيني كري وعرادو كدعي ربتي أما كدعي كرتي ما أنتي سكانين كي قيل غبي ماشهم جرجيني وقد قالين كي وحمل كلها راي وقد قالين سنة بطلع وأسلوبه ودولة النماء وأبن النماء قيل اللي وكان وريديي رياشة هدي عنها بيشة لبدا بيرود أنا لا شغينا إنه هو عيدا كلا شغينا إنه أبنك الدولة ده لا شغينا إنه وأبلغ قادينا كماملك هيران ماملك هيران أو أمام الطوان أما بلد وين أو نغسل دله أو دولس كله وما عليهنا أنا وما عليهنا قيل على كالقاضي لبا كأبور مكري لبا كأبور مكري إلهي ما تغادر كسوة نجم السابحي دولة الناطد قيل ولا كلا عليي نودا لوجه الشيء أضيالك الديران كأن نبض كل ما لوجه الشيء أنا أقول هذا أنها أضيالك الديران كهدي أنها أنا نبض سوق وينه قفتي دارنا أسلا قبلنا قفتي توج أسلا شاقنا قفتي حتى سوق قدنا وربحنت هذا لأنها دولة أسوق قدنا نبض قال أسوق قدنا حق درنا هالسكين وبلغني meeshaan maanta waxaan isugu imaanay shaqaaqa geel ah oo muddo badan la kala haystay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo fududeeyey in dadkii lahay caawa xoolahooda la kala hoydaan sidaasna kumaysa imaan baryo iyo iska dawareeg gooni ah waxay ku imaatay ammaanka sugistiisa waxaan gelinaa waqti waxaan gelinaa juhdi ciddii isku dayda maanta inay xoolo islaamid qaataan mar allay meesha tagto waan uga daba tegi doonaa walaalayaalo هلا قبتو حي حق ka wada shaqeyna amaanka meel kasta joogtiin nabada idin deeqda dooga ilaahay sii barwaaqa ilaahay sii barwaaqadeena hayna faaco xoolihiina qof kasta xoolihi ilaahay sii way ku filayeen hadduu imaansado ninka xoolihiisa wax ku tarimayaan ilaaha u barakeena xalaal soo gudbo xaaraan laakiin barkoobis wax walba oo dhibaato ah oo dadka bulshada soo dhex gashay argagixisada ka faa'iideysanaysa oo rabta inay dadka kala fogeyso inta isku mashquulsan yihiin إيه الدفاع كسر بعان يكمل يبدون صح قاعد بينهم كقدرنا وعن أتاجنا هي عوائية مالين وأنتوا تاسو قشنا هي حق وأنا زادت كم بالشدة شعب إيه نبض كسران نبض كسران قول إيش وعن أول عرنا وعيه عدي ربط إني نبض إيه كهري معتنا قاعد بينهم لغة قدرنا قول إيش وعن قضيات الدين كعد سنة وأنا غير الدين كعد سنة ولا يا لو دين إسلامي وقف مسلم أو إلهي حنبي حبيب كتير ما يعني dilka macna darada ah oo aqoonadiina aad ku seegaysiin iska joojiin wallahi odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanayaa wax alla iyo waxaad aragtiin oo dhibaato ku ammaanka la soo xariira maamulka booliska shaqaynaya waa kana taliyaha booliska waa taaganahay anagoo nabad sugidda taagan mar kasta waa kana ninkan taliyaha aniga waa taaganahay maamulka waa joogaa waxaan u taaganahay inaan idin shaqayno waayo maanta halka aan taaganahay waa deegaanka ilguule geel la kala qaaday iyo dhibaato ka dhalan kartay qaarkood bilooyin maqnaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey ilaahay baa ku mahadsanayna maanta aan geeliyo qolo walba waxay lahaayeen inaan celino inay nabadda wada qaataan inay dowladda la shaqeeyaan inay noo soo gudbiyaan dowladda waa shacab waxaan leeyahay marka shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan hal kelmad maanta aniga shakhsi ahaan waxaan dareemaa meel kasta oo maaragtay shacabka Soomaaliyeed uu ku sugan yahay shaqaqada ka jirta Imagine this, a mild to moderate eczema treatment that helps clear skin without pills. oo maaragtay shacabka Soomaaliyeed uu ku sugan yahay shaqaqada ka jirta ninka wada ay horseeday waa nin shabaab ma ahan shakhsi asagu wax tabanaya ma ninka balaayo hurinayo shabaab waa shabaab shacabka iyo dowladnimada iskaashaday maadaama shabaab ku yaqmeen waxay maanta nafka goobayaan in shacabka isku diraan isku keenan maanta taariikhdu ay tahay 26ka bisha 11aad 2023 wallahi xaq aan meesha soo gabagabeeyay oo aan ku kala wareejinay xoolo oo shaqaaqa oo xoolo la kala qaaday ku tacalluqda
deegaanka ninka la hadda aan joogno ku tacalluqda ilguulle duleedka ilguulle labada beelood oo degta ee walaalaha ehelka raximka ah oo ay kala qaadeen dad xoogaa wax magarataan ay u soo bahayeen ayaan maanta meeshan ku kala wareejinay waxaan rabnaa in aan ninka la yiraahdo nabadda aan u taagannahay ciidamada dhammaan qaybada kala duwan way u taagan yihiin nabadgelyada iyo ammaanka say u sugi lahaayeen in lala shaqeeyo in aan haddii qof geel laga qaado iyo haddii wax loo dhibo aynan ku aargudin iyaduna inay geel kale soo qaado ama ay shaqaaqo geysato ama ay dhiigga maaragtay dadka tolka dariska ehelka ay banaysato inaysan maaragtay ninka la yiraahdo aysan ku dabaqin inay ciddii wax loo dhibaa ay soo dacwooto amniga ay la soo xiriirto saraakiisha qaybada kala duwan ay la soo xiriiraan ninka la yiraahdo innaguna sidaa hadda midaan aan waxba qabanay oo tilaab uga qaadnay oo wax u kala wareejinay ayaan insha allahu tacaala dadaalka usii laalaabi doonaa una kala wareeji doonaa ciddii tilaab qaada xoolo soo qaada ama dhaqan ama dhiig tilaab ciddii qaadana dhammaan ciidamada ammaanka qaybada kala duwan ayaa tilaab ka qaadi doona waxaana lagu samayn doonaa tilaabo waafaqsan sharciga ayaa la masi doonaa insha allahu tacaala biidni illahi alkariim